haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah, fiidiyogan ku daran yahay, fadlan ha fiirsan. asxaabta intaan fiidiyowga bilaabin arrin ayaa rabay inaan idin sheego. Waxaan ogaaday channelka 97% keliya inay fiirsadaan oona channelka subscribe saarin. Arrinkan uma maleynayo wili xateer inay ku dhacday qof Soomaali ah. Fiidiyowgan waxaa laga yaabaa in uu ka bato views, xataa keeni waayo ilaa 40 subscribe. fadlan iyo cadday walaaltinimadaada, channelkana subscribe saar. keliya waxaa igu filan subscribe-kaaga. fadlan adiga fiirsanaya haatan subscribe saar channelka. waad mahadsantahay. galab galbaha ka mid ah waxaan raadinayay meel aan kafee ku cabo, internetna free aan ka isticmaalo. xoogaa kadib waxaan helay meel ay ku qoran tahay computer si free aad ku isticmaali kartaa intii aad shaaha ka cabayso. dhismaha wuxuu ahaa dhismo duq ah, laakiin aniga internetka ayaa u baahnaa. karno soo raacay, wiishka ayaa soo fuulay si aan u tago qaybta 6. laakiin wiishka qaybta 6 markaa taabtay meel qaldan ayuu ii taabtay wiishka. waan ogaaday inuu i keenay qol qaldan, qolkaas oo u eg sida maqaasiinka alaabta qowday ku jirto. wiishka markaan soo fuulayay siduu ahay uu iska bedelay, sababtoo ah qaybta 4 bedelkeeda waxaa soo galay F meelay ku qoran tahay. run ahaantii aad oo cabsaday, naxdin igu jirtay. iyadoo naxdin igu jirta ayaa waxaa maqlay shanqar. kadib waxaan arkay naag u eg sida jinkii oo kale, anigana igu soo socota. meeshii oo dhan way gariirtay. run ahaantii aniga arrinkaas shoog ayaa ka qaaday. si degdegna waxaan uga celiyey meesha aan uga laaban lahaa. waxaana doonayay wiishka inuu isxiro, laakiin naagtii sida jinka u ekeed way igu soo socotay. wiishkana ma xirmin. wax yar kadib nalka ayaa soo daarmay. wiishkana wuxuu i geeyey qaybta 6. kadib niyadda ayaa degsaday. anigoo cabsanaya ayaa soo baxay. qolka kombiyuuteraadkana waa soo galay. waxaan arkay xafiis naag fadhiso. naagtii ayaan u sheegay arrinkii soo qabsaday. naagtiina sidoo kale way naxday. waxayna igu tiri macaamiil badan oo kasoo sheeganaya qolkan waan aragnay. waxaan ku yidhi qisadalka igaaga sheekay. waxay igu tiri qolkaas wuxuu ahaa saaloon ama qurxinta dumarka meel ah. qof kastoo soo gala saaloonkaas waxaan ku arki jirnay ama qofkaasoo dhintay ama qofkaasoo naxsan. xataa maalin maalmaha ka mid ah waxaana loo sheegay in ay tubadii isku bedeshay dhiig. meeshaasina waxaa la waayay qof kastomar ah oo si nabad howshiisa loogu qabto. qof kasta oo kastomar ah oo halkaas imaada meesha asigoo ordaya ayuu ka baxayay ama asigoo meed ayaa laga saarayay. kadib naagtii meesha saaloonka ku lahayd way ka guurtay. meeshana waxay noqotay meel aan ganacsi lagu qaban karin. milkiilaha dabaqa ayaa waxaa loo sheegay arrinkii, wuxuuna yidhi dib u habeen ha lagu sameeyo dabaqa, hana la dhiso. sidaa darteed waxaa bilowday mashruuc dhismo. laakiin dadkii ka shaqaynayay dhismaha ayaa arrimo badan kasoo sheegtay dabaqaas. markastana waxay soo gudbi jireen dacwo cusub oo ka socoto arrinka dabaqa. dadaal badan kadib waxay ku guuldareysteen shaqaalayaashii dhismaha in ay meesha dhisaan. sidaa darteed shaqaalayaashii meeshii way ka soo carareen. xataa waxaa ku dhaawacmay shaqaalayaasha mid ka mid ah. arrinkii waxaa loo sheegay milkiilaha dabaqa. aad ayuuna ugu carooday, wuxuuna go'aansaday inuu iska xiro qaybtaas dhan. hadda waxaa ku maqan dabaqaas milkiilaha dabaqa wiilkiisa naagta uu qabo. waxay ugu wardambeysay iyadoo fuushay wiishka markay fuushay dib damba looma arag.